كل واحد صاحب الكسر هذا برامج كفلقين تاسان سبورتس وتضبطكي مرحلية ذا كلي عداوتان وحاجة كوكسو قد بنا دعوين كوجوا وين عيارها شنت هريال يجوا وين قرار ديرب أيضا تضبط كان أم عاود دبلو أم بقال أيوه ترتن كجامبيون ليجا أو بلوينك يقدم بهكت وكجري وحرب بلعبنا يا كل مدى وريق اللي حيتوان كان برامج قيبها روح نكوي قدونا وحيابيه هو وين عاي شنت هريال هو وين قرار ديرب هل قيبها ضم عن كوفا قدي دونا عيارها عاوة tartanka Champions League iyo kuwa habiidan badhacaya waxaana la jooga oo maanta barnaamijka marti ku ah Maxamed Maxamuud Jacket oo ciyaaraha si weyn u falanqeeya Jacket soo dhaw waa ku faraxsan oo kulano waxa jirta in Premier League uu si xoolo u soconayo Chelsea waa tii FIFA Club Cup ee aaday toddobaadkii ama laba toddobaad ku maqnayd Liverpool waa ciyaareen City waa badiyaan Man United waxay moodaa inay ka luntay dariiqii guusha Premier League runtii marka hore ku dhawahay waana mahadsantahay sida wanaagsan ay soo dhaweeyday Premier League sanadkan waxa muddo sanadihii ugu dambeeyay inuu ka bedelan yahay sanadkan kooxihii 6 koox 8 koox noqdeen markii la tartamayaasha horyaalka intoona bilaabanin 8 koox shaki badan gelinayay sida ku tartami lahayn laakiin waxa muddo Man City Liverpool inay yihiin labada naadi oo u diyaar garoobay inay mar walba ku xifaaltamaan Premier League sanadkii ugu dambeeyay Man City qaadayskii ka horeeyay Liverpool qaaday marka kooxihii Chelsea Man United Tottenham waxa muddo ay Arsenal in sidii la rabay in wili ahayn because Guardiola iyo Klopp waxa u tashteen sanadaha soo socda 5 sano kala dhiman horyaalkina ay si maamulaan marka waxaan leeyahay xaaladda waa koox badan ku adagtaa sanadkan waa aan dul istaagna marka aan ku bilaawno Man United Burnley la ciyaartay Southampton la ciyaartay labada ciyaar ee ugu dambeysay caawana Brighton ay marti qaadayaan waxaad moodaa in ku dhow 9 ciyaarood aysan United ku badin kulmada dhan FA Cup-ka laga soo saaray England Football League waa laga soo saaray Premier League warkiisa iska daaba xagee wax ka qaldayeen sida wada ognaay sidii u baxay Sir Alex Ferguson United waxay gashay xaalad aad u adag isbedel badan ay maaday marka sanadkan marka Ronaldo ku soo biiray rajo badan ay muujiyeen horyaalka kulamada ugu horeeyay way badiyeen markaas rajo badan ay in sanadkan United tartami doonto laakiin waxa dhacday isbedel oo United kulamadii ugu muhiimsanaay ee gurigooda ay ku badi waayeen sanadkan waxay noqotay mid ka mid ah kooxaha ugu liita xagga gool dhalinta hadda waxa saddexdii kulan ugu dambeysay goolasha dhaliyeen aad u liitaan marka United waxay u baahan tahay isbedel aad xoogan tababarihii Solskjaer bedelay tababaraha cusub Rafael waxa rabnay in wax badan iska bedelo laakiin wali iskama bedelin qolkii libiska dhibka taagan yahay Maguire barashar saaran yahay Ronaldo individual players ka marka is haystaan marka kooxda markay ku badan yihiin hogaamiyaasha waxa muddaa in isfahanka uu yaraanayo team waaga ku badan waay marka Salah radaa ku Man City Guardiola mar walba wuxuu jecel yahay ciyaaryahanadiisa inay isku wada mid noqdaan oo ciyaaryahan ka madax sareeyo uusan jirin kooxda aduu maqan yahay De Bruyne Gundogan aduu ciyaarayo wili kooxda isku mid yihiin marka waxa muddo Man United madax taag badan inuu ka taagan yahay qolka libiska isfahan dara badan ka jirto markii hore teamku waxa hogaaminayay Bruno Fernandes oo goolashan dhalinay Ronaldo sida uu maado Bruno sida hore maahan marka isfahan dara badan qolka libiska ka jirto teamka aduu qolka libiska aad ugu liito garoonka waxba kuma keenin kara marka team work Man United iyo daacadnimada ciyaaryahanada aad u liidato Pogba oo mustaqbalkiisa shaki la gelinayo xamuda wax badan ee teamku keenayso United isbedel aad u badan u baahan tahay in basic hoos laga soo bilaabo 5 ciyaaryahan maan inta kale in teamka laga dirto u baahan tahay halka wasaas waaya Liverpool waxay dib u heshay Mane Salah oo afkoon ka soo laabtay Mane ku guuleystay koobkii Senegal markii ugu horeysay tartamayaal ay yihiin wali in ka soo ay 54 dhibcood leeyihiin 63 dhibcood hogaamiyaasha horyaalka ku haya Liverpool ka runtii Liverpool ilaa maalinta ugu dambeysay horyaalka laga ma saari kara tartamayaasha Premier League kulamada ugu dambeeyay markii la gaaro Champions League na imaado kulamo badan la ciyaarayo waxa muddo in dhibaato badan imaad kooxaha waaweyn ku imaan karto Liverpool hadda Man City iyo Liverpool waa labada koox isku dhow hadda Chelsea tartanka waa laga saaray maadaama xayatay dhibco badan ay iska lumiyeen kulamadii ugu dambeeyay inkastoo kaab ay ku soo guuleystay marka Man City kooxda kaliya maanta lii karo waa runtii ku soo dhawaan kartaa waa Liverpool marka Liverpool meesha kama saareyno tan kale backup fiican hadda la imaatay Mane Salah iyo Firmino waxaad u fadhiyo Diaz iyo Jota marka Liverpool waxyaabo lagu eedeyn jiray waxay ahayd rotation sameey kartaa Champions League hadii maanta la ciyaarayo sabdiga game kala leedahay ya ciyaarsi kartaa marka waxa muddo Liverpool isbedel badan Klopp
inuu hadda dhisaayo koox mustaqbalka dhow ilaa 5 sano soo socoto oo xitaa haddii waxba ayna soo iibsan inay weli dhaqaaqi karaan marka Liverpool club heer fiican oo gaarsiiyay Manchester City ka waran hogaamiyaasha runtii Man City waa kooxda kaliya hadda oo aan marwaba shakil gali karin kubadda waa cad iyo madow waa la iska badi karaa laakiin awood ahaan Guardiola wuxuu ku xisaabtamay teamkan hadda waxa leeyahay hadii uu Champions League ku guuleysan waayo oo ka tago teamka waa guuldaradii ugu weyn ee soo gaartay Premier League wuxuu ka dhigay sida kooxihii kale koob kala qaadi jiray 5 sano ugu dambeysay wuxuu qaaday 4 kamid ah 3 kamid ah Malena marka hadda uu kan sii qaado marka horyaalka City ayaa iska leh Man City waxa lagu amaano waxa kamid ah laba koox fiican haysta maanta ciyaaryahanka duu maqan yahay ciyaaryahan kale ma la tawaay hadda Grealish ka dhaawacan Stalna maalmaha form oo horyaalka bilaagiisa waxoogaa muran mustaqbalkiisa la gelinayo marka ciyaaryahan ka maqan xitaa sanadka wuxuu ciyaaraa noobalaan waa waxyaabaha lagu amaan waa nin isku kalsoon marka Guardiola sanadkan waxa waaye aad u fiican City marka waa musharaxiinta ku tahay waa musharaxiinta koowaad hadii nasiibka ka helin City koobkan ayadaas kale ayaga hogaamiyaasha lixdan saddex konta Liverpool iskale 47 Chelsea 41 West Ham ayaa afraad ku jirta Man United ku jirta 40 dhibcood leedahay caawa ay la ciyaaraysa Brighton hadee badiyaan afraad gali kara United kulamadii ugu dambeeyay Southampton iyo Burnley waxay iska lumiyeen Janis aad u fiican labadaas game hadii dhibcaha ay helaayeen 6 dhibcood waxa muddo top 4gooda inuu rajo fiican halay bareejooyinka badan teamka uu dilaa waxa ka fiican 3 bareeja gashid in laba game ah badis hal game laga badiyo way hayaan aadna markan horyaalka wadanka Francis oo Spain La Liga Atletico Madrid waxa ay Levante iyo ciyaartoodu ahayd mid markaasi cajiib ah haddaan gudagalno horyaalka waxa u socda si xooliya Real Madrid oo aad horyaalka hogaaminaysay ayaa hadda muuqatay in lagu soo dabadabaaday 50 dhibcood 54 dhibcood leeyahay halka Sevilla 50 dhibcood leedahay Betis ayaa 43 dhibcood Barcelona dhiga cusub lagu soo diray saxiix cusub sameeyaan 39 dhibcood ay leedahay ma kama wada hadlayna umaleynaa in Barcelona ay horyaalka tartami karto inkaas wax isbedelayaan kawada La Liga runtii xiisihiisa sidii hore ma ahan because mar walba waxaan daawan jirnay CR7 iyo Lionel Messi markay ka tageen horyaalka waxa muudaa sidoo hore inuu xaraarad badneen laakiin mar walba horyaalka Spain waxa ku tartami jiray 3 koox Barcelona Real Madrid iyo Atletico sanadka xaaladda ku xun Barcelona sidoo kale oo isbedel badan galay halka Real Madrid oo Carlo Ancelotti wax badan ka bedelay oo team fiican isku hagaajiyay inkastoo kulamadii ugu dambeeyay ayagana daal badan ciyaaryahanada ay ka muuqdaan marka Benzema markuu ka maqan yahay xal ay u leeyihiin inay gool badan dhaliyaan marka sanadkan Barcelona waxa leeyahay top 4geeda rajo ku jira inay horyaal u tartanto iskaraaf shaafin teamka wax badan oo ka bedelay saxiix cusub keenay laakiin wali xaqi waxay dhibaato ka taagan tahay difaaci iyo noobihii goolka dhalay marka hal game si fiican u ciyaareen oo gameka Atletico Madrid ee 4-2 ugu badiyaan gamekii ku xigay oo Espanyol hadda ay la ciyaarayeen حمودا برشلونة إن هجان كي قبضت وقت جوهري لكن لقد وكان أي حتى كوسك تاني لقى بدي مركا سنة كان برشلونة لقى محل إن هريال أترتمت لكن توفوا إن كل ما يستو رجينا talyaaniga aan aadno oo aad moodo in boorku iska sii jafayo labadii sano ee ugu dambeysay isbedel ayaa dhacay waa tii Juventus la bedelay horyaalka haysatay ku dhawaad 10 sano ee ugu dambeysay 7 kamid ay ku guuleysatay waxa jiib ahayd hadda kooxda gobolka Lombardia ka dhisan ama labada koox ee Lombardia ka dhisan ayaa aad u kacsan Milan iyo Inter 55 iyo 54 ayada waliba Inter ay xoogaa soo korseysay ee soo aad u soo dadaashay 53 waxa iskale kooxda lagu magacaabo Napoli Juventus ayaa afraad ku jirto 46 44 waxa iskale Atlanta Lazio 42 Roma 40 waxaa doodaa ilaa kaalinta toddobaad horyaalku in la ishayo unis bedelay leeyahay maadaama uu hadda soo galiiska horyaalka ugu adag Yurub dhinaca dhibcaha ka waran isbedelka waa horyaalka kaliya waa sidaa sheegtay ku tartamayaan ugu yaraan 3 koox oo qark dhibcaha aad u yar farqi u dhaxeeyo marka sanadihii hore waxa ogaan kooxda Juventus inay hogaanka horyaalka sidii rabta ka yeelan jirtay laakiin sanadkii hore kooxda Inter oo Antonio Conte wax badan ka bedelay saxiix fiican keenay horyaalka si lama filaan ku qaaday sanadkan AC Milan waxa moodaa inay isbedel badan sameeyeen sanadka horena si fiican u ciyaaray laakiin sanadkan waxay cagta u saareen kooxda Inter Milan inkastoo jaanisada marmar qaar ay ka faa'iideysan karin koox marka rabtiin inay horyaal qaato waxa lagu xisaabtamaa kooxaha yarka marka u bixiysid inaad ka soo badin kartid marka dhibcaha ku lumisid kooxaha yarka waxa aad u yaraanaysa rajadaada inaad horyaal qaadi kartid marka kooxda Inter iyo AC Milan
waa labada naadi hadda ugu kaliya ugu cadcad inay koobkan meel Milan ay ku soo celiyaan kooxda Napoli laguma xisaabtami karo sanad walba hadda Milan oo yaalaaba sanad walba Napoli waxay tartan u gashaa horyaalka kulamada ugu horeeya marka ugu dambeeyna waxay ku soo biyay shubtaan inay ku dhameystaan top 4 marka uma sameysana leeyahay inay kaab qaadaan kubad qurxan ciyaaraan waa kooxaha sidii Tottenham iyo kuwa iska meel dhaxaad isbedelka Milan maxaa loo sababeyn karaa runtii Milan ciyaaryahanno fiican oo daayar ay haysataa iyo macalinka wax badan ka bedelay iyo qabiirkooda weyn Ibrahimovic oo waxay tiimka wax badan ka bedelay marka qolka libiska ku haysatid hogaamiye sida Ibrahimovic tiimka wax badan iska bedela Olivier Giroud hadda keeneen oo labada kulamadii ugu dambeeyay Napoli iyo Milan Inter Milan gool badan ka dhaliyay Milan marka rajadeeda ma xumo laakiin waxay aad ugu liidataa kooxaha yarka marka u baxayaan dhibco lumiyaan Faransiiska marka PSG 59 dhibcood ay leedahay halka Marseille 46 dhibcood leedahay Nice 42 41 waxa la kooxda Sirpak waxaa moodaa in horyaalka xilli hore lagu kala baxayo Faransiiska laakiin saxiix weyn ay sameysay PSG bartilmaameed weyn oo ahaa inay wax un ka bedesho marka laga hadlayo koobka gudaha runtii PSG sida ognahay 5 sano iyo 6 sano ugu dambeysay horyaalka ayaga mar walba uu gacan sareeyay xitaa koobka gudaha wada qaadan jiray inkastoo sanadka hore laga qaaday Messi keeneen Sergio Ramos Donnarumma Wijnaldum marka teamka looma dhisin inay League 1 qaadaan waxa laga rabaa UEFA Champions League inay qaadaan laga rabaa marka barasharka ugu weyn ee saaran macalinka waxa waaye ciyaaryahan walba oo teamka waa magac adduunka ku leeyahay Messi iyo Neymar iyo Mbappe ma haysato koox hadda adduunka saddexdaas dhinac amal haysata Messi aan ognahay inuu ciyaaryahanka adduunka ugu laacibsan oo hadda Ballon d'Or qaatay horyaalka Faransiiska waxaa moodaa kulamada ugu horeeyay inuu ku adkaay because Faransiiska markii laga hadlayo La Liga isbedel badan jiro 3 gool oo dhaliyay iyo 7 caawin marka waxaa moodaa Messi inay ku adag tahay horyaalkan dhibaatada ugu weyn waxa waaye qadka dhexe teamka marka haysatid ciyaaryahan aad ku fahmaayo oo kubadda free laga dhigo sida Barcelona camal ugu madheela leeyahay Barcelona mar walba kubadda lugtiisa ku jirtay hadda Neymar iyo Mbappe ayagana waxay rabaan inay dunida ka soo muuqdaan marka ciyaaryahan magac leh team hal team wada ciyaarayaan qof walba wuxuu rabaa inuu individual players u tartamo meesha ku buusan yahay markii meesha waa ku buusan yahay inkastoo aan shakil gali karin Messi mar walba xidig aad u fiican laakiin waxa kaliya aan rabno waxa waaye UEFA Champions League inuu u qaado PSG oo qaadi kara calaamad su'aalka horyaalkooda laakiin waxa waaye mar walba ayaga iska leh kaas dhibcaha ugu badan 10 iyo dhowr markay gaartid oo team fiican ah haysatidna waxa waaye koox kale oo ka tartamaysa ma lahan Bundesliga Bayern Munich iyo Dortmund labada koox ayagana dagaalami kari Bayer Leverkusen waa 41 Bayer Leverkusen booska saddexaad booska labaad 46 kooxda Dortmund konti laba ay leedahay kooxda Bayern Munich booska koowaad ku jirta waxaad moodaa inay siin jireen ayadana wax kala weyn wax farqi weyn uma dhaxeeyo oo 6 dhibcood labada koox u dhaxeeya Bayern game-kii ugu dambeeyay way la isgurayeen oo gool dara aad u xanuun badan ku dhacday aan la filayn marka Dortmund iyo Bayern mar walba sida u tartamayaan last 5 gameska ee aad ugu liitaan Dortmund horyaalka bilawgiisa ilaa kulamada ugu dambeeyay way dagaalamayaan kulamada ugu dambeeyay dhaawac badan imaanayo Champions League la ciyaara Europe League la ciyaara marka kooxda jahwareer badan galay Bayern waxay haysataa marka koox isku dheelatiran oo laba team camal hadii ciyaaryahanada ay ka maqan wili backup fiican haystaan marka Dortmund waxaa lagu dilay waxa waaye mar walba waxay soo saaraan ciyaaryahanno aad u fiican oo xirfadlayaal ah oo adduunka magac ku leh hadda Haaland waxa laga yaabaa inuu teamka ka tago waxa kale laga yaabaa inuu teamka iskaga tago dan ciyaaryahanno badan mar walba ciyaaryahanno ay soo saaraan barasharka weyn saxaafadda saarayso Haaland camalaad suuqa ku jira waxa isku haysta kooxo badan Haaland marka luus gareysid macnaheedu waxa waa inaan horyaal u tartami karin marka Dortmund iyo Bayern 6 dhibcood wax weyn ma ahan laakiin mar walba horyaalkan Bayern iskale waayahay gudagalno qaybta kale barnaamijkeena caawa waxaa dib u bilaabanaya kulamada heerka wareegga 16 tartanka Champions League ayadoo laba ciyaar ay jirto sidoo kale habeen dambe laba ciyaar ay jirto aan ku bilaabno ciyaaraha caawa jira Manchester City ayaa marti u ah kooxda Sport Lisbon oo ay ku aaday wareegga 16 iskuadkiisa la sameeyay waxaana jira in City ay dhammaan ciyaartooydu ay diyaar buuxday u yihiin marka laga reebo laba ciyaaryahan oo xogaa shakil gelinay Kevin De Bruyne ay ka mid yihiin ka waran bilaabashada ayadoo Serjan Jonovic ninka reer Serbia ah oo ciyaartan garsooro ka noqon doono ka waran runtii City Sport Lisbon markaan fiirino laba koox isku awood ma ah City waa kooxda sanadka hore finaalaha tagtay UEFA Champions League Chelsea wani lagu qaaday
koobka kaliya Guardiola xooga saarayeen inuu qaado magac ku helana waxa waaye UEFA Champions League mar haddii Premier League iyo FA Cup iyo Carling Cup Carabao Cup mar walba ku guuleysatid barasharka ugu weyn oo teamka lacagta loo gelinayo oo mar walba lacag badan la geliyo sanad walba waxa waaye inaa qaadid UEFA Champions League waxay kala simeeyeen cadaadiska kooxda PSG labada nin maalqabeennada Carabta kee ku hormari doon inuu qaado UEFA Champions League waa calaamad su'aalka ugu weyn saaran Guardiola waxa lagu fadhiyaa in Champions League sanadka hore meel fiican ka tagay wilina wuxuu haystaa kooxdii iyo koox ka fiican oo waliba Grealish ku soo daray waxa muddo sanadka inay aad u adag yihiin City kulamadii ugu dambeeyay xataa ambitan xataa laga badin marka Sporting Man City mar walba waxa awood badan Man City saad ugu ma dheeraanayna kulankaas shanta ciyaar ugu dambeeyay City hal ciyaar Barage galeen marka halka Sports Lisbon hal ciyaar laga badiyay ciyaar Barage galeen si walba form u yihiin Sporting Lisbon mara Man City hadii u bixiysid kooxaha yarka Man City waxa way waqti hore ku kala baxaan xiliyada Man City waxay dibka ugu badan waxay kala kulantaa markay semi finalka imaad City waa gaartay la markii sidii dhamaadka gaartay ciyaarta ka dhacaysa gegada weyn Paris hadaan aadno Real Madrid ayaa la ciyaaraysa kooxda PSG ciyaar weyn oo Ramos oo dib la kulmi doono saaxiibadiisii hore kooxdiisii hore ayaa tani qayb ka tahay ka war kulankan wajiyo badan uu leeyahay waxa mar kale iswajihi doona saaxiibadii El Clasico marka ay wada ciyaari jireen sida Lionel Messi oo kor imaanay Real Madrid oo ah kooxda ugu badan goolasha ka dhaliyay El Clasico markay imaato waxa way ciyaaraanka ugu badan goolal ka dhaliyay El Clasico absolutely waxa kale kor imaanayo Navas goalkeeper-ka PSG kooxdiisa hore Sergio Ramos oo shaki ku jira inuu ciyaari doonin game-kan asagana kooxdiisa hore kor imaan doona calaamada su'aasha ugu weyn saal waxa way Mbappe oo Real saxaafadda mar walba ku buuboonayay inuu heshiis hoos oo qarsoodiye la galay Real Madrid oo Benzema maanta hadalkiisa sheegay in qof walba uu ogyahay maalin inuu ka ciyaari doono Real Madrid marka pressure badan oo xagga saxaafadda game-kan Mbappe saaray marka Real Madrid Champions League waa kaga fiican tahay markii la fiiriyo PSG oo waxay u leeyihiin way aragnimo badan macallinka Ancelotti muddo badan kadib uu qaaday koobka ugu horeeyay Champions League oo jooga ciyaaryahanadii u qaadeen qaar kamid ah waliba joogan dhaxda Mudrik iyo wuxuu Casemiro Toni Kroos waa dadkii u qaadeen Champions League ugu dambeeyay Real Madrid way wada joogan marka labada team cadaadis badan saaran inkastoo cadaadiska ugu badan uu saaran yahay PSG oo Messi keeneen Neymar asagana shaki laga muujinayo inuu caaw ciyaar doono maadaama dhaawac soo kacay laakiin kursiga keedka la rajeynayo inuu soo fariisto Mbappe game-kan Shablo waxa waaye aad u adag yahay marka aad laguma degdegi karo laakiin mar walba muhiimadda waxay u leedahay PSG su'aasha barashara saaran sanad walba waxa looga fadhiyaa inay Champions League qaadaan maray imaadeen final waxa ka qaaday Bayern Munich sanadkii ugu dambeeyay hadda meel fiican ay soo gaareen mar walba semi final ilaa 8 dhamaadku ay soo gaaraan sanadkan Messi muxuu ku soo kordhi doonaa sharafta ugu weyn sharaftiisa ma difaacan doonaa mise Barcelona wax ku ahay waxyaabaha la isweydiin karo waa Daniel Orsato oo Talyaaniga ah ciyaartan garsoori doona Real ayaana badisay leeyahay 3 ciyaar 4 ciyaar ugu dambeeyay 3 kamid ah badiyaan PSG hal ciyaar ay badiyaan 8 gool ay dhaliyaan PSG 7 gool waa 8 gool Real dhaliyaan 7 gool waxaan dhistay PSG marka 5 ciyaar ugu dambeeyay Real hal Barage galeen runtii kulanka waa ka duwan yahay kulamadii hore maadaama ciyaaryahanka adduunka ciyaaraya Lionel Messi oo Real Madrid si fiican u yaqaana sida goolasha looga dhaliyo marka Real Madridna barasharka ugu badan caawa hadii isla ciyaaraan Neymar iyo Mbappe Messi waxa ku adkaan doonto midkood inay ciliyaan hadii laba ciliyaan mid kamid ah inuu ku fakada laga yaabaa marka Sarback iyo Bayern Munich waa ciyaarta habeen dambe isla habeen dambe Liverpool iyo Inter Milan ciyaaraya oo game-ka hadii aan ka hormarna Liverpool iyo Inter waa game aad u adag Liverpool iyo Man City aniga shaki ma gelinaa sanadan ugu dambeeyay because kooxaha markay awoodooda form ku jiraan lama xaqiri karo Liverpool Interna waa koox fiican sanadka hore horyaalka qaaday isku awood waa ma dhihi karna because Liverpool form fiican ay ku jirtaa Inter hogaanka way wadaa waa sax laakiin mar walba waxa la fiirinaa Champions League qaab ciyaareedka Champions League markii la Liverpool waxa muddo sanadka inay aad u fiican tahay marka waa game adag ma ka hor dhici karna kulankaas laakiin ani mar walba kooxaha Ingiriiska Man City iyo Liverpool sanadka meel fiican inay gaaraan aad ma santahay Maxamuud Jackard ayuu ahaa oo barnaamijka toddobaadka martiko ahaa tartanka Champions League ciyaaro kale oo marxaladaha horyaalada Yurub ayaad aragteen Jackard aad ma santahay barnaamijka inta ku dhan ma santii saaxiibayaal